السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم وعنا ونكسن داود يا ملكس أنا قد ونيسان كسود وهذا ورك إن مانتا تلفزيون كعالمي اس بي تي في. قد بدأ ورك مانتا وقد وركران أيا وحى كمداش شر أي سوي مدن رضا معارض كدي سندل كسي إثيوبيا بوليس كينيا أو حبسك دقي تلنير الصومالية askar ka tirsan ciidamada Amisom oo ka duulay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Kheyre oo ilaamiyay nooca siyaasiyiinta dalka uu u baahan yahay. Kenya oo sheegtay inaysan ku qanacsaneen jawaabta Soomaaliya ay ka bixisay warkii ka soo yeeray dawladda Kenya. qodobo kale faahfaahsan u diyaar garowga. ومالنما جمعة تاريخنا يكون بيجان تهاي لبي لباتن كبيشة فبرايو لبعض كون إيو سجالي تمن كوسود بهذا وركي أوفيسان تريد يقول هوريساي عيمada بروندي قيبتا كأميسوم أيا قميصي كدولي garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyagoo dib ugu laabtay wadankooda sarkaal qariyay magaciisa oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ayaa u sheegay warbaahinta bicitaanka askartaasi oo gaaraysa 200 oo askari oo inay hordhac u yihiin kun askari oo la filayo in Burundi kala baxdo dalka horaantii toddobaadkan ay ahayd markii madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza uu muujiyay in aanu ka qanacsanayn talaabada isaga oo sheegay in ay luminayaan dhaqaale badan. midowga Afrika ayaa sheegay in ay qorsheynayaan in 22,500 oo ah ciidamada ka jooga Soomaaliya ay la bixi doonaan sanadka 2020 kuwaasi oo ka kala socda wadamada xoogooda ku taageera Amisom. gaarigan oo ahaa nooca raaxada gobolkan looga yaqaan Qeybtii ayaa shalay gelinkii dambe ku rogmaday inta u dhaxaysa deegaanada gaawan dheere iyo wisil oo dhammaan ka tirsan koonfurta gobolka Mudug ayaa waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. gaariga ayaa ka yimid magaalo xeebeedka Hobyo isagoona ku sii jeeday deegaanka wisil hase yeeshee gaariga ayaa mar qura ka baxay wadada waxaana ku dhintay sida ay u xaqiijiyeen wadihii gaariga halka ay ku dhaawacmeen 3 ruux oo saarnaa gaariga rogmaday kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo halis ah sida ay goobjoogayaal u sheegeen. tan iyo markii ay guddiga dhismaha wadada magaalooyinka Hobyo iyo Gaalkacyo ee magaalada loo soo gaabiyo goob ay bilaabeen dhismaha wadadaas ayaa waxaa soo badanaya shilalka gaadiidka isaga goosha Gaalkacyo iyo Hobyo waxaana loo sabaynayaa qadar alle ka sokow gaadiidleyda oo aanu marayn wadooyinka liishaha ah. dhamaadkii sanadkii 2018 ayaa ahayd markii gaari xamuul ah oo ku sii jeeday magaalada Hobyo uu ku gudoomay deegaanka gaaban dheere oo hoos yimaada degmada Hobyo waxaana ku dhintay dad gaaraya 4 ruux halka in ka badanna ay ku dhaawacmeen. dawladda Kenya ayaa shalay ka jawaabtay qoraalkii ay dawladda Soomaaliya u dirtay ee ku aadanaa u yeeradii safiirkeeda iyo ceyrintii safiirka Soomaaliya. Kenya waxay sheegtay inay weli jawaabo ku sugayso dawladda Soomaaliya waxayna ku eedeysay Soomaaliya inay marin habaabanayso caalamka. hadalkan dambe ee Kenya jeedisay shalay weli kama aysan jawaabin dawladda Soomaaliya waxaana hadalkan ku soo aadaya xilli weli ay kacsan tahay xiisada siyaasadeed oo u dhaxaysa wadamada Kenya iyo Soomaaliya. dhalinyaro Soomaali ah oo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa xilligan waxa ay muujinayaan cabasho ay ka qabaan duruufo adag oo ka jira gudaha xabsiga. maxaabiistaas oo u badan dhalinyaro ayaa waxa ay sheegeen in qaarkood ay gudaha xabsiga ku xanuunsadeen isla markaana muddo bil ka badan ku xiran yihiin iyada oo weli maxkamad aysan xukumin. iyaga oo la hadlay mid ka mid ah TV-yada ku hadla afka Soomaaliga ayaa waxa ay sheegeen in ay u baahan yihiin daryeel caafimaad iyo in si degdeg ah looga saaro xabsiga ay ku jiraan loona celiyo dalkooda Soomaaliya. sarkaalka ugu sareeya ee saldhigga booliska magaalada Garissa ayaa xaqiijiyay in safaaradda Soomaaliya ee Nairobi u gudbiyeen arrintan si loo fududeeyo tasiilaadka lagu gaarsiin lahaa dhalinyaradaasi dalkooda hooyo ee Soomaaliya. dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa laga soo xiray xerada qaxootiga Dadaab
ee dalka Kenya xilli ay doonayeen inay u gudbaan magaalada Nairobi kadib fijignaan amni oo ay qabaan ciidamada booliska dalkani Kenya. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka hadlay horumarinta midnimada iyo dhab u heshiisiinta shacabka Soomaaliyeed ay door weyn ka ciyaarayso dhismaha dowladnimada Soomaaliya. isaga oo ka hadlay magaalada Muqdisho ayuu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay sugayaan dowladnimo qurux badan isla markaana ay ku sugayaan dadka hoggaanka u haya Soomaaliya. Wuxuu sheegay in dalka uu u baahan yahay siyaasiyiin midaysan horumarinta dalka Soomaaliya, abwaano, dhalinyaro, haween iyo shacabka oo isu duuban si loo gaaro dowladnimo qurux badan. sidoo kale wuxuu sheegay in aan loo baahnayn in dowladnimada kaliya lagu sugo madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo xildhibaanada baarlamaanka, balse loo baahan yahay in si wadajir ah loogu wada shaqeeyo. ugu dambeyn, Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in loo baahan yahay aqoon iyo dulqaad badan oo loo yeesho sidii loo soo celin lahaa qarannimadii Soomaaliya. waxaa magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya ka furmay shir ballaaran oo ay isugu yimaadeen ururada mucaaradka ah ee wadanka ka diiwaan gashan. shirka oo ah muhiim u ah geedi socodka waxaa soo qaban qaabiyay guddiga doorashada Itoobiya, kuwaas oo doonayay in sida ugu habboon loo dejiyo habka ay doorashadu u dhici doonto sanad kadib. madaxa ururada mucaaradka ayaa dhankooda soo diyaariyay qodobo muhiim ah oo dan u ah geedi socodka doorashada iyo sidii hab macquul ah loogu wada qanacsan yahay loo wajaho. wadanka Itoobiya oo dhawaan isbedel dhinaca siyaasadda iyo dhaqanka ah oo uu ka yimid ayaa laga filayaa in loo jiheeyo dhinaca dimuqraadiyadda iyo sidii qolo kasta ay ugu tashan lahayd aayaheeda si nabad ah. ugu dambeyntii, madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, madaxweynaha Mareykanka dhigiisa Mareykanka Donald Trump ayaa ka wada hadlay qorshaha ay xukuumadda Washington ciidamadeeda kaga saaraysa Suuriya. labada hogaamiye oo qadka telefoonka ku wada xiriiray ayaa isu raacay in dib u soo celinta ciidamada Mareykanka ee Suuriya ay tahay mid muhiim ah danaha labada dhinac. waxaa si wada jir ah ugu nuuxnuuxsadeen baahida loo qabo in la taageero geedi socodka siyaasadeed ee wadanka ay dagaalada naafiyeen ee Suuriya. labada hogaamiye ayaa sidoo kale isku raacay in ay si wada jir ah ula dagaalamaan dhammaan kooxaha argagixisada sida laga soo xigtay ilo madax bannaan oo ku dhow xafiiska madaxweyne Erdogan. daawadayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaa warbixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray. warkan waxaa idin socodsiinayay anigoo Cabdirasaaq Kaay Miftaax. anta warkan war lamid ah ku mudan waxaa idin kaga tagnaa sidaa nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.